kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan Ramadaan Kariim ku soo dhawaada shabakada calanka Soomaaliya oo mar waliba aad uga barateen in ay idin soo gudbiso xogaha qarsoon iyo waliba wararka degdega ah ee dalka madaxweyne Farmaajo oo si farsamaysan loogu sheegay in uu ra'iisul wasaare Khayre iska ceeriyo si kalsoonidii wada shaqo ay dib ugu soo noqoto madaxda dawlad goboleedyada ee ka qayb galaya shirka ka socda Garowe ayaa waxa ay muujiyeen biseel siyaasadeed oo aan hore looga baran qodobada asaasiga ah ee lagu aasaasay golaha ay ku midaysan yihiin dawlad goboleedyada ayaa ahaa in si wadajir ah loo difaaco haddii dawladda dhexe ay ku gardarooto mid ka mid ah dawlad goboleedyada haddaba tallaabada lagu difaacay qadiyadda madaxweyne Xaaf ayaa ah mid ka tarjumaysa xaaladda uu dalka ku sugan yahay maanta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa waxa uu in muddo ah dagaal ku hayay dawlad goboleedyada isagoo ka jiray dhaqaalihii halka qaar kalena uu uga baxay balamo badan go'aanka wadajirka ah oo ay qaateen dawlad goboleedyada ayaa u muuqda mid si farsamaysan fariin loogu diray madaxweyne Farmaajo taas oo ah in uu iska ceeriyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre taas oo sabab u ahaa dhibaatada ka dhex taagan dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ceerinta Khayre ayaa keenaysa in dib uu u soo noqdo kalsoonidii ka dhaxaysay labada dhinac nasiib xumo Xasan Cali Khayre ma lahan shakhsi dareen siyaasi iyo mid wadaniyad leh taas oo uu ku aqbalay xaqiiqda siyaasadeed ee ka jirta magaalada Garowe taasi oo ah in uu isagu iscasilo si dalka loo badbaadiyo su'aasha la isweydiinaya ayaa ah madaxweyne Farmaajo awood ma u leeyahay in uu aqbalo talada farsamaysan ee ay soo gudbiyaan dawlad goboleedyada ma jirtaa cid tala siisa oo u akhrisa fariinta ku hoos duugan khilaafka Galmudug dhanka kale jamhuuriyadda Somaliland oo qarka u saaran in ay hesho aqoonsi caalami ah kana go'do Soomaaliya inteeda kale bilihii ugu dambeeyay waxaa si weyn u kordhay wafuudda caalamiga ah ee tagaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana mas'uuliyiinta Somaliland ay sheegeen in wafuuddan ay ka mid yihiin dadaalka ay ku raadinayaan aqoonsiga Somaliland ma ahan dawlad ay dunida aqoonsan tahay waxaana sanadii 1990kii ay iskeeda ugu dhawaaqday in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda dalka Masar Master Hamdi Zanad Lusa oo booqasho ku jooga magaalada Hargeysa waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay adkeynta xiriirka labada dal ee jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Masar taariikhda faaca weyn oo ay wadaagaan labada dal arrimaha ganacsiga xoolaha iyo kalluunka waxbarashada iyo isdhexgalka xiriirka labada shacbi sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ugu mahadnaqay dawladda Masar taageerada ay jamhuuriyadda Somaliland ka siiso waxbarashada gaar ahaan dhinaca macallimiinta u hagarbaxay sidii ay ardayda Somaliland wax u bari lahaayeen shantii bishan aynu ku jirno madaxweynaha Somaliland ayaa qaabilay madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Master Olusegun Obasanjo oo iminkana ah gudoomiyaha hay'adda Brown Charity Foundation oo booqasho ku yimid magaalada Hargeysa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda dalka Eritrea oo gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kulankan oo ahaa mid albaabada u xirnaa saacado badanna qaatay ayaa labada dhinac waxa ay kaga wada hadleen arrimo kala duwan oo khuseeya xiriirka labada dhinac iskaashiga iyo nabadda geeska Afrika Somaliland ayaa sheegtay in dhammaan xubnaha ka socda dawladaha caalamka ay soo gaaray magaalada Hargeysa ay kala hadleen sidii loo aqoonsan lahaa Somaliland isla markaana ay ku jiraan dadaalada lagu aqoonsanayo Somaliland tani ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii madaxda dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ay ka gaabiyeen dadaaladii lagu waday in lagu wada hadashiyo dawladda Soomaaliya iyo dawladda Somaliland Farmaajo iyo Khayre ayaa muddadii ay joogeen waxa ay waqtigooda intiisa badan ku lumiyeen waxyaabo maalayacni ah oo aan faa'iido u lahayn shacabka Soomaaliyeed iyo waliba dalka ayagoo juhdi fara badan ku bixiyay duminta dawlad goboleedyada dagaal ay baraha bulshada kula galeen siyaasiyiinta mucaaradka waliba ayagoo hanti badan oo dalka wax badan loogu qaban kari ku bixiyay Facebook si loogu buunbuuniyo ayagoo aan waxba u qaban dalka arrinkaas wuxuu fursad weyn siiyay Somaliland oo aan maanta wada aragno in ay qarka u saaran tahay helidda aqoonsi caalami ah wixii warar ee intaasi ku soo kordha waxaa si toos ah ugula socon doontaa channelkeena calanka Soomaaliya ha ilaawin subscribe haddii aad muuqaalka ka heshina like sidoo kale wixii fariin ama dhaliil aad inoo hayso inoogu reeb qaybta hoose commentiga la wadaag asxaabtaada waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka tan iyo muuqaalkeena xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo Ramadaan Kariim